السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jira arrimo caafimaad oo inaga qarsoon isku daritaanka leendhanaanta biyo nadiif ah iyo malab saafi ah isku daritaanka saddexdan shay ee kala ah leendhanaanta biyo nadiif ah iyo malab saafi ah waxa la isticmaali jiray waqti hore waxaana lagu daweyn jiray xanuuno badan haddaba in koobka idin muuqda oo lagu shubay biyo nadiif ah isla markaana lagu tuujiyay jeex leendhanaana laguna sii daray malqaacad malab oo saafi ah kadibna la isku walaaqo lana cabo hal malqaacad maalintii 2 jeer ama 3 jeer waxay jidhka ka saaraan hargabka waxaanay dawo ka yihiin dhammaan xanuunada ku dhaca dhuunta iyo sanka sida lagu sheegay daraasad lagu sameeyay jaamacadda California maadada malabka ku jirta ee biofenol waxay la dagaalantaa bakteeriyada waxaanay ka hortagtaa noocyo ka mid ah kansarka marka haddaba malabka iyo leendhanaanta la isku daro qaabkana loo diyaariyo waxay sii xoojiyaan arrintaas isla markaana isku daritaanka saddexdan shay oo qaabkan loo isticmaala waxay kordhiyaan tamarta jidhka waxaanay nadiifiyaan guud ahaanba jidhka waxaanay ka hortagaan calool istaagga haddaba ciddii qaabkan u isticmaalaysa saddexdan shay waxa lagula taliyaa 2 arrimood oo kala ah inay isticmaalaan xilliga subaxdii ee aanay waxba cunin iyo arrinta labaad oo ah in markay saddexdan shay qaabkan u isticmaalaan inaanay kafeega ama shaaha ka daba cabin ugu yaraan muddo saacada